Maanta waxaan ka hadli doonaa taariikhdii hore ee Soomaaliya sidee ahayd. Ka hor sanadkii 1960kii, Soomaaliya waxay ahayd dal xornimo doon ah, iyadoo gobollada Waqooyi iyo Koonfurta ay u kala qaybsanayeen gumeysi. Waqooyi, oo loo yaqaan Somaliland hadda la taagan yahay, waxaa gumeysan jiray Ingiriis, halka Koonfurta ay gumeysan jireen Talyaani. Sanadkii markuu ahaa 1960kii, waxaa midoobay labadii gobol ee gumeysiga ku jiray. Soomaaliyana madax-bannaani buuxda ayay heshay. Intii u dhaxaysay sanadkii 1960kii ilaa 1969kii, wadanku wuxuu lahaa dowlad madani ah oo ku jirta isbeddelka siyaasadeed, doorashooyinka iyo xisbiyo iyo baarlamaano. Sanadkii markuu ahaa 1969kii, kadib markii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake la dilay, military ayaa Afgembi kula wareegay xukunka. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaana talada qabtay. Intii lagu guda jiray xilligii Siyaad Barre waxaa jiray xukun adag iyo caburin mucaarad iyo la dagaalanka qabiilada si uu u baabiyo qabyaaladda. Dhibaatooyinka kalena waxay ahaayeen dagaalo gudaha ah iyo diblomaasiyad adag. Siyaad Barre wuxuu dalka ku maamulay nidaam military iyo nidaamka hanti wadaagga. Sanadkii markuu ahaa 1991, nidaamkii dhexe ee xoogga lahaa wuu burburay. Macnaha xukunkii militariga ah oo Siyaad Barre uu hogaaminayay xilkii waa laga tuuray. Kadibna waxaa bilowday dagaalkii sokeeye. Gobollo qaar ayaa isu gaar noqday, tusaale ahaan Somaliland ayaa sheegatay madax-bannaani inkastoo aan caalami loo arkin. Laakiin hadda sheeko waxaa maqlayay oo ah ceeb ayaa dhacday. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. markii aad Google ku qorto magaca Somaliland waxa ku soo baxaya in ay wadan tahay ama country ayaa ku soo baxaysa. talaadada soo dhaafay shirkadda Google-ka Somaliland waxay aqoonsatay inay wadan ay tahay. Somaliland waxay ku jawaabtay shirkadda Google iskiima yeelahay maxkamadda caalamka la tiigsanaya. Recognize Somaliland. shirkadda Google oo markii hore u aqoonsanaan jirtay in Somaliland tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. Somaliland waa la aqoonsaday, waxaana aqoonsaday Google-ka. Laakiin taas waxba inuu soo kordhinayso lama baahanba. Gunaanadka Soomaaliya waxay soo martay marxalado qaniinyo leh, sida inay xornimo u dagaalamto, dowlad madani ah, kala talisnimo, dagaal sokeeye, burbur dowladeed, qabiil oo dagaal qabiileed, diblomaasiyad oo dibadda ah, dagaalo gudaha ah ayaa door weyn ku lahaa taariikhda Soomaaliya.